maxay calaamada sujuudda ah wajiga ragga oo kaliya uga muuqataa oo aysan uga muuqanayn wajiga dumarka haddaba ogow sababta allah waxa uu yiri سيماهم في وجوههم من أثر السجود أيضا قيمها بدن وحي نوت الماميسا إن علامة وجهي كم مقطع أي تهي أستان أمد محمدية وقارة تاسو المفر بدن أو ضافها عالم كون ولا يكون فسرين إن تهي علامة مدو أو قفك مسلم كأوجهي سكسو مقطع تتك علامة دان أي كسو مقطع معها ضد عيار هو أولي إلهي وأضوم إلهي وصلاة دكوك الشوعة halka kuwa salaada aan ku qushuucin ama aan ku xasilin aysan ka soo muuqan taariikhda salaad warkiisaba iska dhaaf dadka qaar ayaa jira kuwa soo oranaya waxa jira dad qaar oo wajiga dhulka ku xoqa marka calaamadan qof kasta uu samaysan karaa daba waxaan leenahay dadka sidaas aaminsan hadii ay dhacdo in qofku uu dhulka madaxa ku xoqdo hal mar iyo wax ka badan waxa ka dhalan kara dhaawac taas oo meesha ka dhigaysa in nabar uu ka soo muuqdo laakiin calaamadan waa ka duwan tahay oo nabar ma lahan laakiin dumarka calaamadan kama muuqato saas oo ay tahay waxa jira dumar badan oo salaada ku dadaala kuna qushuuca haddana kama soo muuqato calaamadan maxay tahay sababtu waxa la soo wariyaa saddex sababood oo kala duwan kuwaas oo laga bixiyo dhamaantoodna la tilmaamay inay yihiin kuwa sax ah sababta ugu horeysa ee koowaad waxa lagu sheegay in garbaha ragga ay culays badan yeelanayaan marka ay dhulka ku hoobtaan ama ay madaxa dhulka dhigaan culayskii madaxa ayaa dhulka wada tagaya waxaana halkaasi ka dhalanaya cadaadis foolka kaga imaanaya dhulka taas bedelkeeda waxa khilaafsan garbaha dumarka oo iyagu aan lahayn wax culays ah oo qafiif ah awoodna waxay u leeyihiin inay xakameeyaan wax cadaadis ah ama soo food saarayo sababta labaad oo laga bixiyana waxa ay tahay in raggu inta badan ay masaajidada ku soo tukadaan salaada halkaas oo salaada qaarkood la dheereeyo marka la barbar dhigo dhanka dumarkana iyaguna ay guryaha ku tukadaan oo ay salaada soo gaabiyaan sababta saddexaad oo laga bixiyay ayaa waxa ay tahay in dumarku ay inta badan wajigooda ku daboolaan xijaab marka ay sujuudayaan si toosan aysan wajigooda isu taabanayn dhulka marka loo eego ragga iyagu wajigooda si toos ah waxa uu taabtaa dhulka sababta ugu dambaysa oo laga bixiyay ayaa waxa lagu sheegay in calaamada sujuudda ay dumarka ka muuqato isla markaana ay tahay mid aan la arki karin calaamadooda sujuudda dumarku waa mid cadaan ah qaybta sujuudda ka sareysa ayaana lagu arkaa dumarka salaada badan waxa laga dareemi karaa wajigooda ayaa cadaan iyo nuur badan ka muuqda marka loo eego dumarka aan salaada tukan kuwaas oo iyagana aysan ka muuqanin wax nuur ama cadaan ah